سؤالي أذوق ما مسلم بعطاه مسجال بعطاه dadka ku daawanaya inuu joogsaasho ma muslim baa tahay مسجال بعطاه وجهنا الجلسة سمعت أنا جنة كم جنيه مسلم بana hadaa مسجال bana كان أدركته أريكن الكستو كسوه كذا هنقول شيخ هنقول سياسي هنقول أبوان هنقول إنت جوانا وقفني قفكاس بالشرط أنا جاي عن شريدي إلى من أنا أقول كوكان عيون بالي وشد يلا تصلون تودي شوي أيان ستة إحنا من البني آدم كسمايستي واحد من الناس ما كان هو بني آدم سمايستي الدين تبى دون سنة كلا سارية أروح حاجة سكوك النساء دين إلى هذا سود شيء وصل الدولة دين تسأله كلا ساري كلا هدي الدولة نمد دين هذا دولة نمد الدين تبى كلا سارة سيلا معمول كلا دولة نمد مياه هنا شرع الإسلام كله قم حاول كلا سارة عبد الدين وحال سكوت كم أراني قالوا ما تسمع شرح يمدح وين كل ما نقول والديمقراطية ده وجود شيء ما واحد لا ده هاي الديمقراطية ده كتير تقدم هاي قلبها الديمقراطية ده تسمى سعد دعو وحوي أنا كنا الديمقراطية محيط هاي يمكن يحسون ميكروفون سياسات marka tilaawsi aan waxa la isagir xadsiyo awal iyo barka gaabul ku ka sheekaynayo ilaahay si rasiyeen kaasa waxa masaajidada ka hadlo dhan ka khayr badan ka sheekeeya bin Hashim ibn Umayya adiga bal maxaa faa'iido kugu jiray lagaga sheekeeyo bin Hashim ibn Umayya reer qoys leeyahay ka soo jeedinay garxadsiyo awal iyo habar jecel iyo arab iyo ayuu iyo tijaaray inaad kala barato liftigiisa ayaa quraanka ku yeeshay inta barta adiga aqoon inta lag badalade ilaahay imisan nabi ayuu soo diray ساشا waxaa soo weydiisaa ninka aad u haysato ka ugu aqoonta badan haduu kaaga jawaabo waa beenaale quraanka beenniya ilaahay baa quraanka ku sheegay minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alayhi adigu imisan nabi ayuu ilaahay soo diray diinta hadda ka taqaan ma garanayo sababtu maxay tahay adigu muslina sidee ayaad ku leeyahay nabiyada tirada nabiyada intay haayeen ilaahay soo diray ilaahay laftigiisa subhanahu wa ta'ala ilaahay bismillah المانية waa erey sida dhulka uu leelka la inooga keenay carabta sidoo kale ereygaas secular bay yiraahdaan markuu Yurub tago oo wax weeyaan ereyadan adigu dhumaayiinka ah laakiin adduunka ka soo jiray in badan waxay yiraahdaan fasl dawla aydiyan marka arigu sheegay waa diinta iyo dawladda oo kala saaro marka ereygan anigu bari baa jirtay aan bac ka qabay in xukunka degdega ah ee lagu barbaariyo oo waqtigan yaraa lagu barbaariyo dadkeena ereygan markii ugu horeysay maqlay waxaa 1997 buug Soomaaliya anigoo madrasada dhigta oo waqtiga waliba hamigeyga iska raxinta iyo dagaalkan la yiraahdo jihaadku waa xaq laakiin kan qaadaya waxa weeye dagaal la yiraahdo adigu dhiigga bini'aadanka iyo fasaadka iyo dagaalxyada waxaas buugaas soo qaatay sidaan soo socday imika ilaa 5 sano ka hor umbar isweydiiyay horta ereygan aad jeedaa muxuu yahay diintiisa dawladdu saxka iska galaan waan soo waday adigu marka ilaa 3 sano ka hor baan ku qanacay ereygan waxa looga oranayaa waa qof waliba sagaal laakiin anu de shakhsi baan markaan baaray si walba u baaray abdi duco inay ku habboon almaaniyada aqoon u leedahay adigu soo waxaad aaminsan tahay in almaaniyadu ay tahay waxa adigu fikirka ka keentay maya waxa fikirkayga ka keenay maaha aqoon inta la badalada almaaniyada adigu de almaaniyadu maaha wax ay aqoon loo yeesho waxaad ku aaminaysaa marka almaaniyada waxa la akhriyo aaminayada maaha waa hab nololeed aqoon inta la bad ka haysata almaaniyada waxaan ka haystaa ereyga ah fasl dawla aan diin maxay ku salaysan tahay wax weeyaan laba waxoo aan isku mid baahayn ba marka hore lagu leeyahay wala kala saaraya diin iyo dawladda marka almaaniyada ma adigoon aqoon badan ba ka haysan ayaad rabtaa inaad fikirka almaaniyada aad ku dhex faafiso bulshada maya sidaba waxaan aqoon lahayn ugu dhex faafin kartaa dhageyso oo naasatay dhageyso waxaan ku gebiga
ereyga almaani ama caalamaani sida yidhaahdaan waa nin kula naytisaba 25 sano kahor ayaan ereyga maqlay cilmaani baa beriga la odhan jiray haddana mar dambe caalamaani labada erey marka luqadda carabiga la joogo sidoodaasay sax ku yihiin asalkooda midna cilmi buu ka yimid midna caalam caalamku waa halkii dadku ku noolaayo wastacmarakum fiiha ilaahay inagu weyn dadka ku camiray dadku inay camiraan ugu keenay adigu shakhsigaaga almaani maxaad ka aaminsan tahay anugu dee habnololeed baan ka aaminsanahay sidee loo noolaan adeeg baan ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay ummad kastaaba waxbay aaminsan tahay dhaqan bay leedahay waxa ugu weyn anigu ka soo qaatay almaaniyadda aaminsan maxay ku salaysan tahay aniga almaaniyadda aaminsan waxay ku salaysan tahay allahu akbarta masaajidka lagu tukadaa inaanay cidna siifi u noqon qofnaba aanay siifi u noqon antum aclamu biumuuri dunyaakum aan ku sii wado diinta iyo dowladdu waa kala laba sidee kala cabdi duco ku soo noqon su'aasha sidee bay diinta iyo dowladnimada loo kala saari karaa maadaama Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu diinta islaamka ku xukumi jiray isagoo dowladda sidee loo kala saari karaa shariicada islaamka iyo dowladnimada maamaanay soo simaneyn maana ummadda muslimka cabdi duco ku soo noqon su'aasha iyadoo galo islaamku nabi maxamed kama bilaabmay nabi maxamed wuxuu ahaa alayhi salaatu wasalaam nabigii ugu dambeeyey nabi maxamed wuxuu su'aasha ku soo noqon cabdi duco nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam miyuu kala saari jiray diinta iyo dowladnimada nabi maxamed dowladdu bay isaga arkayba dowladdii miyaan islaamku hogaamin okay islaamku diin baa hogaamin maxaa taqaanaadu dee aan kaga jawaab su'aasha nabi maxamed madaxweyne mu ahayn horta nabiga ku sallallahu nabiyada alayhi salaatu wasalaam masalliga nabiga ku qalsa cabdi inaan qasro farxaddu waxay ku dhibay kula muuqataa madaxweyne nabiga ku saliya anuu qasriya oo faraxsan nabiga ku saliya maxaa ugu aragtay su'aasha ka soo cabdi su'aal baan ku weydiiyay su'aasha weydiisay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam reer quraysh la yiraahdo ka dhashay reerkaasi dowladdu waxba kama yaqoonin nabinimadu waa doorasho ilaahay waa ismo qof ilaahay dadka ka marka adigu ma waxaan nabi maxamed ka soo aroorin baad rabtaa inaad adigu samaysato iyo waxaan aqoon lahayn iimaaniyad dowladdu ma aha wax ilaahay ka soo arooray dowladdu dadka samaystay waa ilbaxnimada bini aadamku samaystay waa habnololeedka marka wax bini aadam samaystay iyo diintii baa doonaysaa inaad kala saarto adigu xagee isku gelinaysaa diinta ilaahay baa soo dejiyey waa dowladnimadii diinta see loo kala saari karaa haddii dowladnimadii diinta adigu ii sheego halkee galaan dowladnimadii diinta haddii la kala saaro sidee loo maamuli karaa dowladnimadu miyaan ahayn shariicada islaamka lagu maamulo maxaad u kala saaraysaa cabdi diinta waxaan isku jirin halkee iska galaan bal ii sheeg adigu waa adiga la soo kordhanaye waxaad iga jawaabtaa oo ii sheegtaa diinta iyo dowladdu halkee iska galaan sidee isku galaan sidee haw diintu waxa weeyaan dowladnimadu waa in shariicada islaamka lagu xukumo sidee u kala saaraysaa haddii cabdi duco haddii la kala saaro diinta iyo dowladnimada maxaa soo ukaadiyo diinta iyo dowladdu halkee iska galaan diinta iyo dowladdu kaba soo qaad adduunyada waxaa jira dowlado gaal iyo muslima dowlado muslim keliya iyo dowlado gaalo keliya dowladnimadu waa adeeg cabdi duco diinta iyo dowladnimada haddii la kala saaro maxaa soo baxaya diintii baad leedahay halkaas ka dhiga diintu waa tii soo degtay waa tii shariicada islaamka waa tii islaamka lagu xukumayay diinta iyo dowladnimada haddii la kala saaro muxuu yahay waxa soo baxaya maxaa ka dhalan kara aan su'aal ku weydiiyey maanta ma ka haddaa su'aasha ka jawaab waxaa ka dhalanaya wax isku waxaan iskuma jirin baad adigu leedahay haddii la kala saaro horta ma isku jiraan marka hore dowladnimadu miyaan ahayn in shariicada islaamka ummadda lagu xukumo dowladnimadu waa tan maraykan ku haysto ee ma jawaabin diinta iyo dowladnimada haddii la kala saaro muxuu yahay waxa soo baxaya ka dhalanaya maxaad jecesha adigu in lagu xukumo u kaadee laba isku mid ah anigu waxaan ku yiri baa haygula si calan xagane su'aasha ka jawaab diinta iyo dowladnimada haddii la kala saaro maxaa soo baxaya maxaad jeceshay adigu in lagu maamulo haddii diinta halkaa la iska dhigo oo dowladnimo lagu maamulo aan isku sheego diinta iyo dowladnimadu inay laba kala yihiin horta aynu isla qaadano haddii la kala saaro sidii la kala saaro soo maaha tamam isku jirada okay yaa kala saaro midna rabbu samaawaat baa ayaa soo diray
إلهي بس السماء فوق سبع سماوات في صدري marka kuwa biyaan muslim hayn ما مركز سالو تلاتو أدو قدر كلام كذا سالو تلاتو ما إلهي بس biyaan muslim hayn kuwa leedahay hala kala saaro diinta dawladnimada miyaan muslim hayn oo sharci islaam ku dhaqmay hadii diinta dawladnimada kala saaro miyaan fusuqiyo wax kala soo baxay cagdico see loo kala saari kara diinta dawladnimada maadaama aan muslim nahay see loo kala saari kara waxaa jirtay iyaduna qiso mucaasara oo mawliidkiisii aan ka qisay oo ka dhacday Falastiin Beirut bay ka dhacday iyo Lubnaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Lubnaan ta koonfureed bay ka dhacday sidoo kale dhalashada nabiga lagu dabaaldegay inaan qabiil qadaasiinta la oranayay ka dhalatay oo iyagu masiixiyiin wada ahaa ayaa xabad seeraarto xabadihii nabiga loogu dabaaldegay ihtifaalka nabiga ku dhacday madaxay kaga dhacday hooyadeed waa masiixiyad islaam ma haysato laakiin waxay maqlaysay dadkan dabaaldega waday ee inantaada xabada ay kaga fakatay nabiga u dabaaldegayeen waa muslimiin nabi maxamed bay jecel yihiin hawshaasay wadeen inanteedii Beirut baa loola cararay jaamacad weyn oo ku taalay waxa la damcay in la dabiibo dhaqaatiir heer caalami loo geeyay waxba waa laga qaban waayay hooyadii xaqan bay waxay leedahay ayna anta ya Muhammad nabi Muhammad oo kumee man yusama muslimuuna muslimiintu kay ku magacaabiyeen oo kumee rasuulul muslimiin kay ku magacaabiyeen oo kumee al muslimuuna qatalu ibnati muslimiintu inantaydii bay dileen iyagoo ku xafladeynaya ee kumee waxaa barta ka dhacday mucjiso weyn oo mucaasira mucjiso marka lagu leeyahay waxay ka mid tahay waxyaalaha aqliga bini aadamka uu garan karo wax ka weyn weeyaan 1953 miilaadiga dhacday malaas ah waa taariikhi waaqici meel walbana way ku qoran tahay qisatu ayna anta ya Muhammad baa leeyahay qisada daqiiqada kadib waxa lagu yiri inantaadi kala soo egdeemada ugu dambeysay dhakhtaradii waxba way ka qaban waayeen nabarkii nabar weyn buu noqday xaalad waan u taagweynay xaaladii cakiran oo ay leedahay nabi maxamed oo kumee kii muslimiintu nabigii muslimiinta ku magacaabeen oo kumee inantaydii bay muslimiintii dileen kumee ay xaqii u soo dhaqaaqday albaabka waxay maqashay inanteedii ku leh ya umma hooyoy اغلق الباب الباب كأنه واحد لا تدعه يخرج هودين إنه بحه وحيس ويديسي إن أنت صوتي لها كومدي بيكون شرتا داوع عيد وعلسي هاي سبب تبي يكون هذا الشيء أما محاسية من يدي ما وحن كلها الله يمسوا عيد كله وحي ويديسي هو يان إنه قبتا يان الباب كحلا دخاتيرتي واتاجينهن حالته إنت مركي هراء وحي قاعد حالته وحبي لك قبل كريم دقيقة كذب وإنت هذا الشيء يدي على الباب كأنه حلوه زيد ديني ما يقول جواب تمركي هو يدي يعني نقبت على الباب كأنه كحلا إنه نبي الله والنبي إلهي إنه محمد رسول الله والنبي محمد رسولك إلهي يا وإيمت وياهي فقد ذهب الدم والجرح راوعي ليجينا ويتغان اللهم صل وسلم وبارك صلى الله وياي حبيبك ساس uqurmanaya inantii dhiigiya dhaawicii markii baa ugu dambeysay nabiga waxa arkayay oo kaliya inantan dhaawac ahayd saacada ee la daweynayay waxa meeshii ku ashahaatay dhamaan dhaqaatiirtii oo dhan iyo dhamaan qabiilkii qadaasiinta la oranayay masiixiyiinta ahayn marka islaamka ahayn dhamaan waaqicadaas ay ku wada islaameen waxa ilaahay uga dan lahaa in dadka hadami ay ku islaamaan ayaa looga dan lahaa mucjisada weyn nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi iyo anbiyadu way ka duwan tahay noloshan ay bini aadamka kala nool yihiin dhimashadooda iyo noloshooda way ka duwan tahay dhimashadoodu waa ka ihyaa'ina waa nolosheen oo kale markay adduunkan ka tagaan xayaat albarzakhi bay galayaan oo adduunkan ay soo gaari karaan kana ka waran karaan
واو واسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد وش بصير waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa